العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل قدومي يومنا ريال أنا waxaan ugu horeysiinayaa dalkeena waxa ka jira waqti adag abaaraaya jira siiba gobolada bariga waxa jira biyaha iyo abaar baahsan oo waxay tahay abaartii hore ee waddanka soo martay xiriir la leh sidaa aawadeed waa inaynu marka ugu horeysa inagoo gudadayna waajibaadkeena aynu soo saarno oo u yeedhno mas-uuliyiinta ku shaqada leh howlaha hadday noqoto hay-adda abaaraha iyo aafooyinka iyo kaydka raashinka hadday noqoto kuwa barakacayaasha aynu ka wareysanno waxyaalaha ay u talagaleen dadka biyo-la'aanta iyo abaaraha ay hayaan waan soo jeedinayaa weliba waxaa jirta xaalad kale oo aan markii hore jirin dowladda maamul goboleedka Puntland dadkii deegaanka u ahaa waxay soo galeen gobolada bari xoolahoodii iyo soo guurtadoodiiba culays weyn bay ku hayaan dowladda xiriir waxa ka saaran culays weyn baa ka saaran iyo dadyowgaba taasi waxay keentay in abaartu xagga Puntland bay ku soo xun tahay marka inay marka ka dambayso gobolku xagga ka xigo in xaaladdu ay ku soo xumaato xagga biyaha iyo xagga daaqa dadkeena waxa haysta waqti aad iyo aad u adag inaynu ku baraarugsanaano oo hay'adaha dawladda ee ku shaqada leh u yeerno bayna ugu waajibaan waana soo jeedinayaan xaaladda siyaasadda iyo geeska Afrika ee xilbaanadu ka hadleen anigu waxaan leeyahay si yaacsan baa looga hadlay oo maxay ahayd wax la isku dardarayo maxay ahayd ninba sidii fikirkiisa iyo siyaasaddiisa ay ugu muuqato anigu waxaan leeyahay arrinkaasi waa arrin xasaasi ah waa arrin u baahan in si degan loo eego arrin si qabyaaladaysan looga hadlo ama si reereedna ma aha runtii qaran baynu nahay inaynu si qaran uga hadallo mudanayaashuna ay si siyaasadaysan oo qaran ahaan uga hadlaan baa loo baahan yahay waxaan anigu soo jeedinayaa si aynaan ugu dhex dhicin inaynu xogtaa xog ka badan inaynu hayno baan anigu soo jeedinayaa oo aynu ka wareysanno wasiirka arrimaha dibadda madaxweynaha ay shirguddoon ka soo wareysto innagana ay noo warramaan arrimahaas oo kale marka laga wada hadlayo anigu guddoomiye waxaan soo jeedinayaa in fadhi xidhan uu gorow kaga wada hadlo oo saxaafadda laga daayo waa arrimo aad iyo aad u xasaasi ifan xitaa haddii wasiirka arrimaha dibadda maanta loo yeero waa inuu arrimahaas su'aala ka weydiinay waa inuu noqdo fadhi xidhan waxa la qarinaya waxa weeye wax walba in media loo bandhigo dema Cabdiraxmaan leenahay su'aalo badan oo u baahan inaynu inagu isweydiino ama tala ku kordhino waa aan u baahanayn in ummadda oo dhan loo bandhigo waa adduunka oo dhan baa dadkan laga daawanaya dal wadda waliba sir buu leeyahay anigu waxa weeye sirteena dibadda yaan la dhigi maanle anigu waa soo jeedin weeye waa la diidi karaa aniga soo jeedidayda taa waxa weeyaan waxaan leeyahay loo tala badsado qabyaaladana laga daayo aan ka wareysanno aan ku darsanno qof waliba wuxuu haysto warka wasiirka arrimaha dibadda iyo hay'adaha ku shaqada ay noogu warramaan markaana talada ku beegan aan ka soo jeedinna qabaan arrimaha kale doonaya wax ka taabto waxa ka mid ah dhaqaalaha iyo buurtida waxa weeye dhaqaalaheenu ugu weyn wuxuu ka soo baxaa dekada berberana heshiis baynu la galay DB Wall waxaan qabaa anigu heshiiskii DB Wall aynu la galay ilaa hadda inaan dhaqaaq waxana ku gadaaman madmadow weyn baa ku gadaaman inagu 65
iyo 35 in sheerkeenu kala ahaa inaga DBO baynu hala kaansi markii dambana Ethiopia ku jirtaan waxyaalahaas oo dhan inay kala cadaadaan markay marayaan oo aynu war ka helno baa loo baahay ilaa haddana mar walba dhagaxin baa meeshii la leeyahay maanta la bilaabay bira la bilaabay ilaa hadda wax la bilaabay ma jiraan waxaan aad uga xumahay ninka mas'uulka ah ee maxay ahayd toy ummadan xil u haya inuu wixii la isweydaarsaday ee maxay ahayd toy dawladda iga isweydaarsadaan dawladdu isweydaarsa gudaheeda in media uu la isla soo taago ma halkan wasiirka ganacsiga wuxuu isla soo taagay oo DB walba naga codsatay waxaas naga codsatay in qiimaha sida loo kordhiyo ama asaasaan ugu jawaabno toodii baan noqon waxa weeye dawladdu deena qoraalka ka wada hadasho ee ummadda in loo soo bandhigo ma dawladana waxa laga doonayaa dadweynaheeda iyo ganacsatada in iyadu qalayso ma aha wax walba inaynu maxay ahayd toy media isla soo taagno taana waxa leeyahay war hal cadeeyo heshiiskii wali waxa ku gadaaman madmadowga ku gadaaman wax dhaqaaqayda kadib ma jiraan waxaan leenahay siyaasadda haleenoo cadeeyo golahan ha loo cadeeyo si inaguna aynu hadii la dadweynaha u qancino waxa kale oo aan ku darayaa waxa weeye halkan waxa yaala oo mudaxiloodkoodii dhamaaday golaha deegaanka muddadii hore oo ka dhamaatay waxa uu kordhiyay golaha guurtida golaha guurtidu doorkii dhaweyd muu kordhin de waxa loo baahan yahay in la cadeeyo waa golo dhan oo qaran oo la doorto dastuuri waxana waajiba in ama doorashadoodii la qabto ama golaha guurtidu kordhiyo golaha guurtidu kordhintoodu waa sharci waa xeer waana mithir galay meel laga dhaafi karo anigu inaan jirin baan arkaa inta aan muddadooda dhaafin madaxweynaha waxaan u soo jeedinaynaa inuu soo jeediyo in golaha guurtida u kordhiyo anigu kama hadlayo mana odhanayo golaha guurtidu ma laha eed ama maxay toy ma laha maxay ahayd toy سلوك مرة تاسو أرهن كله لكن شرعيا بكاذي قولا كستا أو دستورية أو شرعية وإنما دور شو ضل قبتها حلي جاي تشوجين أما قولها قورت الكردية تاسون بشرع كنا قنايا هذا أنا وحكو فردي أكرسي مدي قولها قورت الكردية تارا وحن تاسان سوتش دينا يا إن مدحوينهم سوتش دين تيسي haddii kale waxa ka dhalanaya muran sharci oo had yar bad wala wada hadlo waxa kale oo aan doonayaa inaan ka hadlo halkan waxa ka dhacday iyadoo uu daba fadhiyo gudoomiyihii gudida dabagalka iyo hantida ee golaha wakiilada waxa ay halkan ka sheegeen maalintii wareysteen wasiirka maaliyadda in 8 milyan xukuumaddii hore lagu leeyahay taana ay wadanku la daala dhacayo deynka wasiirkuna wuxuu yiri iyo hanti dhowruhuba waxay yiraahdeen wax lagu lahaa dawladdii hore oo deyn oo ay ku wareejisay dawladda cusub ma jirto gudida waxaanu ka doonaynaa gudida hantida iyo dabagalka waxaanu ka doonaynaa inay cadeeyaan haddii kale waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa khalad bay noqonaysaa waxay noqonaysaa gaf bay noqonaysaa waxaan u baahanahay inay gola u cadeeyaan waxay ku hadleen baanu doonaynaa waxa weeye in madaxweynayaasha dalkan wax u soo qabtay in la xagxagto ma هذا الكلام لا يشد أيده قدومي وادقين
وهي جوابتي حكم قيامنا gudoomiye waxaynu u baahannahay guddida waxaanu ka sugaynaa jawaabta waxaanu doonaynaa inay u caddeeyaan 80 milyan in golaha loo caddeeyo inuu jiro iyo inaanu jirin waayo waa lagu dafiray iyana way sheegeen waxaana soo jeedinayaa guddoomiye guddida uma aynaan diran inay warbaahinta wax u sheegaan waxaynu u dirannay inay inaga horta marka hore wax inoo sheegaan aniga shaqadaydan ka hadlaya geeska aniga shaqadayda ma geeska kama shaqeeyo anigu waxaan ka shaqeeyaa golaha taa waxa weeye taa waa soo jeedinayaa guddoomiye waa soo jeedintayda golahani waxaan uga baxanahay warbixinta waxa kaloo aan maxay aan ka hadlayaa waxa weeye annagoo ka turjumayna dareenka dadka dadweynaha bulshadan waxa reer Soomaaliland waxa haya shaqo la'aan waxa haya asxir barar waxa haya caafimaad lacaga waxa haya waxbarasho lacaga waxa soo dhan bay dawladda la dhacayaan waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda iyo golahanba inaynu keeno dawladda Soomaaliland dhamaanteedba in la keeno oo aynu keeno barnaamijyo dadka shaqo loogu abuurayo sixir bararka laga baxayo caafimaadka lacag la'aan laga dhigayo waxbarashada bilaash laga dhigayo inaynu siyaasadaha soo jeedino siyaasadahaas waxay keeneen waxa soo dhan dadku markaa inuu qabyaalada u jeesto waxa kale oo aad uga xumaa xisbiyadu inay keenin barnaamijyo ay dadka kaga saarayaan qabyaalada laakiin ayagu horseedeen taana waxaan u soo jeedinaynaa xisbiyadu in ay keenaan siyaasad lagaga baxayo ama xisb waliba uu kaga baxayo qabyaalada uu kaga saarayo dadka Soomaaliland uguna abuurayo arrimo bulsho waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo aan isu dayno hadalku waxa weeye waa oran kartaan jawaabtiina haddii marka ay yara damaqdo aniga waa fikirkayga waxa kale aan ku darayaa waxa weeye guddoomiye waxay la tahay qodobkanna waa laga wada baqaya aniga ku daraya waxa weeye golaha waxa ka jira guux shirguddoonka waxaan u soo jeedinaynaa sidaynu uga wada hadalno aniga ka turjumaya xildhibaanada guuxooda iyo dareenkooda inaynu fadhi xidhan shirguddoonku qabto oo aynu ka wada hadalno maamulka golaha iyo nidaamkiisa iyo sidaynu u wada shaqaynayno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد شديت كيلو تكدونين مويه شديت ولا قعد انسان كذا وحتى هذا والله لو قعد كم وقعد يهلا وقف مضفري اظن مكتوب لكن هذه حالة لا يمكن أن تكون